howlgal qorshaysan uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Janaal Maxamed Tahliil Biixi ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga deegaanka Marcade ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo halkaas ciidamadu ay ku qabteen horjoogiyaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ciidanka ayaa intii ay howlgalka qorshaysan ku guda jireen waxay gabi ahaanba burburiyeen goobihii maleeshiyaadka Al-Shabaab gabaadka u ahaa oo ay kamid ahayd meel maxkamad beenaad ahayd iyo xarunta ururinta lacagaha baadda ee shacabka ay ka qaadi jireen dadka ku dhaqan deegaankan ayaa nabadiidka ku qabay dhibaato aad u fara badan Janaal Maxamed Tahliil Biixi taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo goob fagaara ah kula hadlay dadka deegaanka ee ku dhaqan deegaanka Marcade ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa u sheegay inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aysan waxba ka rabin balse ay ka dulqaadayaan heeriyada cadowga isla markaana ay diidan yihiin inay Al-Shabaab dhaqaale ka urursadaan shacabka dhibaatada baahsan la tacaalaya annaga xoolo idinka rabno saka idinka qaadi mayno lacag idinka qaadi mayno baad idinka qaadi mayno midda adinka la idinka qaadaan rabnaa inaan idin baajino oo aad haysataan nimanka la oran jiray shabaab waa burbureen xog ma haysaan waa burbureen shabaab waxay ku burbureen xog annaga ka helna hadday dowladnimo raadin lahayeen waa waayeen waqtiga waa ku dheeraaday hadday leeyihiin diin baa wax ku xukumaynaana waa ku xukumi waayeen oo diintii ay wateen inaysan diintii sax ahayn baa dadkii ogaadeen hadda waxooda waa dhaqaale boob bas dhaqaalaha la kala urursanayaan wax kale ma rabaan xukunna ma rabaan diinna ma rabaan waa dhaqaale doon dhaqaalaha la doonayo jeebkooda ku jira adig waa xoolihiinna waa arigiinna waa xogaaga yarkaa oo aad maqaadaha uga xidhishaan kaasaa loo jeedaa annaguna kaasaan rabnaa inuu jeebkiina ku jiro haddii ilaahay yidhaahdo meeshaan waxbarashay heli lahayd caafimaad heli lahayd nololay heli lahayd yaa u diiday waxaa u diiday nimankaa tuugta ah oo dadkan masaakiinta ama dadkaana dad lacag laga qaadi kara iyagaa baaba'ay oo rafaadsane dadkaas sidaa u rafaadsan dadka wax ka raadinhaya dowladnimada ay rabaan iyo diinta ay rabaan xaggee ka keeneen waa dad u baahan ayaga in loo gurmadee aga xaafiyaa idin imaan lahaa beeraha idin fali lahaa iskuulaad dowladdu leedahay idin imaan lahaa caafimaad baa idin imaan lahaa iyagaa idinka hortaagan waan ognahay inaynaadan jeclayn oo inaadan rabin laakiin khasab aad ku khasbantihiin inaad wax sii bixisaan waa ognahay laakiin khasab dambe wax idinkagama qaadayaan insha allah deegaanka Marcade ayaa ah deegaan u dhexeeya dhulka dhoobeyda iyo dhanka xeebta ee degmooyinka Afgooye iyo Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Islaawa Cabdullaahi Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka deegaanka Marcade gobolka Shabeellaha Hoose